السلام عليكم سلام كدب كسو دواده muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa waxyaabaha aysan jecleen lamaantaada inaad samayso midda koobaad waxay tahay isbarbardhiga dumarka marna ma jeclo isbarbardhig in lagu sameeyo tusaale loo soo qaato dumar kale xitaa qaraabadeeda ha noqdaan sidoo kale dumarka ma jecla sheekooyinkeeda cuntada ay samaysay daryeelka nafteeda hagaajinta gurigeeda ama korinta carruurteeda in qof kale lala bardhigo waxay rabtaa wixii wanaagsan inaad iyada ku ammaanto wixii kale aadan ka heli karinna si degan aad wax ugu sheegto midda labaad waxay tahay haw awood sheegan ragga ay raadinayaan dumarka ma ahan nin iyadu awood sheeganaya markastana xanaaq iyo walwal ka muuqdo ku xanaaqa wax ugu yar ka hor istaaga himiladeeda laakiin waxay rabtaa nin u noqdo garab iyo dhiirigeliye u sabra cafiya u dhoola cadeeya xiliyada adagna garabkeeda istaaga balantana ka soo baxa xili walba midda saddexaad waxay tahay wax walba u sheeg oo waxba ha ka qarin haddii aad meel aadayso u sheeg oo ha dhihin hal mar isugwaan kuu soo noqon waxaad dhahdaa meesha ayaan aadayaa oo hadalku u caddeey haddii aad sidaa dhahdo waxay u aragtaa qadarin weyn waayo waxaad la wadaagtay waxyaabaha aad samaynayso dumarku waxay aad u necab yihiin waxyaabaha mugdiga ku jira inta aad maqan tahay waxaa laga yaabaa inay ku fikirto intuu ku maqan yahay oo uu qalbigeedu shaki soo galo sidaana ay kalsoonideeda ku dhaawacanto midda afaraad ha noqon baqiil waxaa mas-uul ku ah ragga inay daboolaan baahiyaha lamaantooda iyo inay ka jawaabaan baahiyaha gurigooda dumarka ma jecla ninka baqiilka ah ee kula xisaabtama inta lacag uu siiyey iyo siday u isticmaashay waxaa wanaagsan inta aysan lacag ku weydiisan inaad siiso aadna kala tashato wax walba ay u baahan tahay waxaa hubaala haddii aad afartan qodob ka soo baxdo inay lamaantaadu ku jeclaan doonto kalsooni buuxdaana ay kugu qabi doonto ee isku day inaadan afartan qodob garab marin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh